laga baxyo rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa horaa loo soconayahay hoosiiskii laga baxyo rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa horaa loo soconayahay berdogla lagu socda haleelada loo dhashiyo ruinta lagu wada ilaaciyo waa xariir berdogla lagu socda haleelada loo dhashiyo ruinta lagu wada habeniyo waa dhara hadafku waa hiisidhee liyo waa hadalyaro habeniyo waa dhara hadafku waa hiigsidhee dalkani noqon maayo hodan haddaan loo wada halgamine qabyada hoos laga gufaynayne ani wali hawshigiisa qabanayne dalkani noqon maayo hodan ilayska lagu hirta horaa loo soconayahay dhaarba hodano habeen dumaga mugdilay ilayska lagu hirta horaa loo soconayahay بسم الله الرحمن الرحيم تدورها رسالة يكون تخشي يلا يعدو يكون كان حتاجنا آد ينا يتوان تنوسو دوي وإذا ما عدقنا أنا كنت أدعي مقع وقتيا وزارة يترياشي إذا ماذا يتريس جبوتي بوليسكي جبوتي أو إن سوسو جبوتي يهرب كلا أفرع بين سعودية كما عدقنا آد يبقى ما تنتهي marka labaad muddo dhowr cisho ah ayaan ku maqnaa Jabuuti waxaan jecel fursad u helay in la soo tooso horumarka uu dalahaan gaaray bari ilaa galbeed dekado fara badan oo Jabuuti u dhowr ah Tooqoshi iyo Orx oo mid walba dekad ka dhisan tahay iyo Gubbato runtii waxaan ku soo arkay dadana waanahay isku dadnahay isticmaalku xadab dhulka uu xadka dhex dhigay iyo dawladda kala afa qolaba afgaara ku afbaratay Faransiis Ingiriisi Carabi qolaba wax baratay laakiin dad isku mid ah dal iyo isheedaho dadkooda ah sida Afrika dhanba ku dhacday dawladaha iyo waxbarashada kala duwan ee la maray ma baabiinayso dadka xuduudaha arrimaha ka xiga waxay soo yihiin
وهذا الهي وامري أبي هو سوء ويلي والد صدق أبتي سوء مركا ما بابينيسو إذا الله باسابور كنسيتو دي هاي أي أسوأ تريالو والشقين وهم يخلو والشقينيها قولي هي جوتي ولالين وحان كسوار كي حرمي حومي ضد كفكر هيا سيا وحلوة قبصدا سيا الله حرمها سيدا الله شقيا وقليلين الله فرين مياه أي كل برطان تكنولوجيا عالمي سيا الله ترسمها دليرة يدوكا تشاينا لها أمريكا لها أفريكا لها dadkaas waxay ku halmeeyaan nabad iyo shaqo iyo waxbarasho iyo horumar inaguna intaan leer baan wadnaa markaa waxaan furayaa oo ku rajaynahay in wixii imika ka bilaabma horey oo jirta aynu sii xoojin doono waxa wada qabsiga iyo walaalatinimada daacadda lagu shuraakoobo tacriinta lagu shuraakoobo nabadda lagu shuraakoobo dalka wixii laga qabanayo horumar la isugu tago inaan dadku meel waraaqaan kale sida kala gaare taasaan ku soo arkay idinkana waxaan idin doonayaa inaad taas xoojisaan haddii la yidhaahdo dowladda joogto oo mahadnaqaynaa madaxweynaha xukuumaddooda iyo shacbigoodaba soo dhaweyntii walaaltinimadii iyo niyadsamada inay tusaan korneyl cabdillaahi oo taliyaha booliskana waxaan uga sii mahadnaqaynaa 3 cisho si uu dedejiyo intuu uga shaqaynayey in jidkaa hawlihiisa fuwaadaan sidii gawaarida iyo dadku u gari lahaayeen 2-3 shaana lagu dhameeyey hawshoodii insha allahu taana waxaa inoo kordhi doonaa horumar xoog leh dadka laga saara taariikhdooda soo ciidanaysu sheegi mayso geeska afrika waa lagoogi taariikhdii dee waxaa la idhaahdaa aabbahay waxaasu ahaan jiray sala waxaas ahaan jirtay saylac maanta maxay tahay dadka joogaan ku gaarsiinayaa taariikhdii hore dad baa dhigay dadkii taariikhda hore dhigay way dhammaadeen inagaa joogna saylac maxaa loo qaban karaa see magaceeda loo soo celin karaa maxaa loo tari karaa reer saylacna wuu saaran yahay xilkaas jabuutina wuu saaran yahay hargeysana wuu saaran yahay hararna wuu saaran yahay waayo intaasoo waa intay ka farcantay xadaaradii ka dhalatay saylac ee dalkoo dhan gaadhay marka kuwaasna hiilkii waa ku leeyihiin oo laga sugayaa reer saylac iyo inagana waxaa laga rabaa waxqabad iyo horumar iyo fikir ka fikiraya nabadii barwaaqo ee aan ka fikirin qolo iyo wax yaro hoos loo eega iyo halkanaa la isku haystaa ceelya iyo halkanaa buuri la isku haystaa iyo taa maanta waa in laga horumaraa dad isku mida la noqdaa saral awdal barejeex waxaan ku dhahayaa laascaarood ceelgaabo dhammaan soomaaliya somaliland waxaa rabaa meel inay caalamkuna wax la qabsato ay jabuuti la tartanto etoobiya la tartanto dalka kale jaal kala tartay hore martaan rabaa fariintaasoo arkay waa kaa walaaladiina horumar wax qabsanaya deernaan daawa carabka ka gaadho aad iyo aad u mahadsantahay wasalaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي ما مهده نبض قب يا برواقو يا نبض هكذا سوق كأنا مانتا وحنا كم بعضنا قلنا دمانتا يوم وفد للوضع الدوليين بقى ولا لازم نخرج بنتي أنا سوق البيئي وزير كوغامينيو يا تشرنادا يا مدحتويدوغا aadi aad baan ugu mahadnaqaynaa muddo 5 cisho aan joogay Jabuuti dalkoo dhan baa la soo isugu horumaray socdaal hawaa qaran ee la hayay ka weyn oo siday wax u qabteen iyo dalku intuu baaxad leeyahay iyo dadka ku nool bari ilaa galbeed iyo walaaltinimo ayaa mushata cisho soo aragnay ummad reer Jabuuti ah oo ilaa olof tajaro Jabuuti dhammaantood kalgacal iyo walaaltinimo iyo daris wanaag iyo wax wada qabsi iyo niyad fiican aan idinka sidaan soo maray waxa kale inuu ognahay oo naga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuuti iyo xukuumaddiisaba in dhibaatadii yar ee halkan ka jirtay wadada gaadiidkana la dhameeyey oo maanta waa bilaabeen baabuur wadadu waa muddo 6 sano ku dhow xidhnay sabab ammaan awgeed wixii hore u dhacay awgeed waajibaadka inaan saarno waxa weeye Jabuuti
iyo somaliland waa isku mid dad ahaan dhaqan ahaan cimilo ahaan waa laba dal oo ilaahay wada abuuray oo isku dhafan oo isdhalay oo isu dhaxay oo wada dhashay marka waxaynu u dhaqmaynaa haddii aan ahaan mustaqbalka inaynu noqonno dadka dad isugu dhow dowladaha dowlad isugu dhow wax wada qabsada wixii horumara wadaaga dhibaatada soo gurmada nolosha wada qaybsada sidaa ilaahay u abuura wax wada qabsadaan oo aynu ka baxno ra'yigii hore ama maskaxdii hore ee isticmaalku qaybiyey ee xuduudaha iyo dadka in la dhigo oo sharciya lagu adkeeyo insha allah mustaqbalkoodu ka baxaynaa shacbiyada labada dhinacba waxaa looga baahan yahay halkan cabdillaahi cabdaa soo socda dhammaantiin wada garanaysaan malaha qof looga joogaaba garanayo jidkaa haddii la furay oo cabdillaahina odaygiisi yahay waxayna saaran mas-uuliyad weyn labada dhinacba mas-uuliyadana saarna waxa weeye dadka aan xilkaaska ahayn ama maskaxdooda la bedelay ee dhibaatooyinka wada ee nabadgelyada xumayn kara ee dhinac walba joogi kara shacabka sheekha iyo gabadha iyo ayeeyada iyo aabbaha ayuu xilku saaran yahay in la wada ilaaliyo danteenna oo qof amniga ama nabadgelyada xuyeeya idinku aad duris noqotaan hadday nabadgelyada naga xumaato ma nolaan karo walaalada xadkaa fadhiya idinka waa idin ogol yihiin sharciyadiina waa ogol yihiin inaad tallowdaan inaan wada noolahano in la wada shaqayn waa la ogol yihiin laakiin dhammaanteen waxaan uga ilaalinaa waa nabadgelyada nabadgelyadana aad iyo aad ha loogu dadaalo weliba dhinaceena ha lagu sii dadaalo waayo inagu waan daba furannahay dhul dheer baynu hor fara badan oo ilaa inteena usheka ayaanu u furannahay ilaa badweynta inteenu u furannahay iyagu waa in xidhan oo ilaalin karaan taana intaasaan ka oranayaa maanta waa taariikh waxaynu qoraynaa taariikhdii iskaashiga horumarka walaaltinimada waxwada lahaanshaha iyo dad si hoobaynu nahnaa laba dalba waxaynu ka baxaynaa waxaynu xigaynaa ra'yiga ah dadka khilaafka jecel dadka horumarka neceb dadka fikirka gaaban ee ah in la iscolaatamo in wax la kala jiijiito waxa ka wanaagsan in la socto la wadaagoobo hore loo maro taasaanu qaadanaa maanta aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaa maanta farxada in wasiiradii iyo janaradii jabuuti iyo janaradii somalilan iyo wasiiradii somaliland dhammaantood idaacadda ay joogaan iyaga oo tilmaamaya wax wada qabsiga walaaltinimo iyo dad iskaashado taasaana waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu go'aansaday inuu jidkaa dheer shacabkiisa la wadaago oo uu maanta la soo maro jidkaa dheer mudane madaxweyne halkani waa degmadii saylac waxay ilaa saaka u taagnayd xiiliyahooda u taagnayd inay ku soo dhawayso adigoo ku maqan howlaha ictiraaf raadinta oo kaa go'an inaad qaranka jamhuuriyadda somalilan dowladahan jaarka nahay iyo afrikaba uga raadiso taasi maanta guul bay u tahay shacabka reer saylac iyo shacabka reer somalilanba waxaan leeyahay guul weyn mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay gobolkii sayl ku soo dhawow waxaan ku leeyahay degmadii saylac ku soo dhawow waxaan ku leeyahay hooyadii xadaaradda ku soo dhawow dhammaan waxaan salaamaynaa gobolka salel iyo degmada saylac waxaan u wada joognaa dhammaanteen aan u wada taaganahay soo dhoweynta qiimaha badan aynu ku soo dhoweynayno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo muddo safar ugu maqnaa dalka jaarka nahay jabuuti oo wax badan inoo soo qabtay oo ugu weyntahay in waddadii xadka hayd laysku furo oo ganacsigii maanta oo aad gawaadhidii ay isdhex mari doonto haddii la idhaahdo oo dhammaan somalilan min saylac ilaa min laascaamood
ganacsigu si wanaagsan uu gaarigu u dhex mari doono meel kastoo Jabuuti ka mid ah Somaliland oo degmada Saylaana ay u ahayd ganacsi iyo wax ka income oo ka soo geli jiray benefitka aan faa'iido ku qabeen degmada Saylaana ay wax badan ahayd oo maanta inoo soo dhameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo guula inay maanta u saacabino oo soo dhaweeyno niyaduna ku soo dhaweeyaan waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shicibkii waxaan arkayaa shicibkii Saylac Tuqushi iyo Looy Caddo halkan iskugu yimid oo farxad iyo reereen ku soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi anigoo matalaya oo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo shicibka waxaan ilaahay si aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad hambaliyaan ilaahay hambaliyo labada shicib waa laba shiciboo walaala waa laba shiciboo weligood wada noolaa wayna wada noolaan doonaan dhulkana waa loo wada furi waa la isdhex mari dad walaalo wax isku taraan noqonana waad mahadsantihiin. hadal badin maayo madaxweynaha dhameeyay baabuurta raashinka imika yaalla halkaasi iyo wixii dambaba baabuurta waa loo ogol yahay inay baxaan soo qaataan imika haddoona wax halka yaalla soo qaadana soo geliyaan xaadku waa furan yahay gaadiidku waa marayaa shuruudda kuwaatan la weydiin marka ugu horeyso cusub yahay waa la rusayn waa la sii dayn markuu magaalada gaalina ha goosto assurance waayo isagay dan u tahay oo haddii maqaadir ku timaado berintooda lafiisa ku daafici doono wax kaloo lagu xidheeya ma jirto intaa markuu buuxsado uu gali uu soo bixi lisbaasee waa la siin siday weligeed bay ahaan jirtay intuu doono uu kaga dhex shaqayn kara laba dal